sanad ka dhamaaday ee 2020 xukuumadda Soomaaliland ee garwadayga ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay waxqabad muuqda ka hirgelisay guud ahaan gobolka Sool. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa waxqabadyadii ka qabsoomay gobolka Sool sanadkan dhamaaday ee 2020ka. haddaan gaygayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay qaybsho haddaan gaygayga qayto haddaan madantiyo shidaalka cabdiqani maxamuud jiide waa gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland waa goforotoraha degmooyinka kala duwan ee gobolka Sool madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u soo magacaabay bishii koowaad ee sanadkii 2019 iyadoo gobolka Sool ay ka jireen caqabado badan oo kala duwan colaado dagaalo qabaa'ileed iyo sidoo kale iyadoo ay istaageen mashaariic badan oo gobolka in laga fuliyo la doonayay haddaan dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda. gudoomiyaha gobolka Sool mudane cabdiqani maxamuud jiide waxa uu sanadkii labaad joogaa xafiiska ugu sareeya ee looga arrimiyo gobolka Sool sanadkan dhamaaday ee 2020ka waxa uu gobolka Sool ka qabsoomay shaqooyin waaweyn kuwaas oo dhaxal gala haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horeysa sanad walba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo waxa hadima leeyahay bahadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagay noqon loo hanwen yahay sanadan 2020ka runtii wuxuu ahaa naga sanad khayr qaba sanad wanaagsan adduunka de wax walba negative iyo positive oo yeeshan wax boqol adduunka lama helo laakiin marka loo eego halkan ka soo dhaqanay maanta halkaan marayno runtii wax ilaahay loogu mahad celiyo subxaanahu wa ta'ala runtii wax la soo koobi kara maaha sanadkan 2020ka waxyaabaha ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool ay ka qabatay iyadu oo si toos ah oo directly u fulisay iyo waxyaabaha maamul ahaan iyo dawlad saldhigatay iyo amnihan ku qabsoomay waxyaabihii ugu aan ka xusad karo waxyaabaha amniga salka u ah sanadii hore kan ka horeeyay heshiisyadii beeluhu way soo dhamaadeen sanadkanna heshiisyadii ugu dambeeyay aan oran karo kuwa ugu dambeeyay beelaha ayaa sanadkan qabsoomay insaad ogtiin waliba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacan weyn ka geysatay oo wasiiro heerkoodu sareeyo ay u soo dirtay oo ilaa maanta u jooga heshiisyada waxa kamid ah heshiiskii Arcadaya ka dhacay runtii beelaha Siyaad Maxamuud oo aad ogtiin muddo 30 sano miyaan oran kala taqriiban iyo wax ka badan ba ama 40 sano wax ka badan ba ama muddo dheer wax waxyaabo runtii aan laga wada hadlin laga heshiiyay maanta laga walaaloobay oo la isdhex mariyo xal dhalay laga noqday oo wax ilaahay lagu mahadnaqo insha Allah waana ku mahadinaya beeshaas runtii inay sana gacanta ugu saayso waxa la dhalay maanta laga noqdo wax maanta Siyaad Maxamuud dhaxyaalo aan la aqoon aanay jirin waxa kamid ah heshiiska imka gacanta lagu hayo shanta wasiir ay u joogaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo diray maanta gacanta lagu hayo oo hogaaminayo wasiir Saciid Sulub oo Arcadaya maanta aan ku hayno shaqo weyn nagala qabtay hawsha gogashan dawladdu dhigtay beesha reer Fiqishine iyo beesha ugaariyahan ama reer cilmi aan idhaahdee maanta la hayo taasna meel waxaan maraysaa
gudahana kaga jirna hawsheedii waana dhammaan rabtaa insha Allah waxyaabaha kale ee beelaha ama iyagoo soo dhamaadeen odayaashii qaybta ka ahaa nabadayntii ka socotay degmada Aare Cadeeye ee gobolka Sool ee socotay muddada 3 bilood ah ayaa ka markhaati kacay sida weyn ee xukuumadda Somaliland uga qayb qaadatay nabadii laga hirgeliyay degmada Aare Cadeeye taasoo lagu dhameynayay khilaafaadyo iyo colaado soo jiitamayay ku dhawaad 30 sano waxayna si weyn ugu mahad celiyeen xukuumadda Somaliland juhdiga Somaliland dawladda Somaliland hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi ay geliyeen inaanu guuleysano oo aanu hawshan qabanno oo ay wax walba oo ay ku hirgelinayaan shirkan ay nala garab taagnaayeen Somaliland la'aanteed shirkan nooma qabsadeen aad iyo aad baa loogu mahadnaqaya laakiin hawsha Somaliland waa u dhamayd waxna kama maqnayn madaxweynaha haddii uu taageeray oo arrintan taageeray waa dadkiisii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaguna aad iyo aad buu mudan yahay una mahadsan yahay haddii uu arrintan taageeray oo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatinle ibada eebe GBLG mashruuca horumarinta dawladaha hoose ayaa markii ugu horeysay sanadkan laga hirgeliyay degmada Laascaanood mashruucan ayaa lagu horumarinayaa dawladaha hoose harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatinle ibada eebe aalada horumarineed ee deegaankan ka qabsamay awalan waxaad ogtihiin in degmadeen Laascaanood ama degmadeen Laascaanood ay degmooyin kale Somaliland ay haysan jireen mashaariicda GBLG-ga aduu dadaal far badan kadib dawladeena ayaa runtii shaqo weyn ka qabatay mashruucaasi maanta dawladda hoose si fiican uga socda GBLG-du horumarkeeda iyo wixii dawladda Somaliland ay ku soo kordhisay wasaaradda arrimaha guduhu waxaad ka arki doontaan xafiisyada dawladda hoose waxaa runtii aan aad ugu faraxsanahay maanta gobolkeena uu leeyahay damdamis oo runtii ahaa mid qiimihiisa leh oo idin muuqda wadamada dariska ah macluumaad waxaan arkay diyaarad wadamada dariska ku dhacdayo damdamis loo waayay maanta Laascaanood alxamdulillah rabbil caalamiin iyagoo active oo shaqaalihina qoran yahay shaqaale waliba gobolka Sool oo la soo tababaray dhismihiina loo dhisay gaadiidkana loo keenay bulshadana aad uga faa'iideysanayso maanta aynu aragno maanta 99 ka aad wacaysid marka aad dab Ilaahay naga subhanahu wa ta'ala wax weyn Ilaah loogu madnoo damdamiskaasi magaaladana waa ka jira ilaa airportka magaalada ilaa airportka Laascaanoodna waa yaala hadii diyaarad Ilaahay nagu ma keenay ay wax ku noqoto airportkeena sidii wadamadan aynu jaarkan qaarkood ka dhacday loo waayay doon dandamis markii damiyo waa active way starting waxaad ogtihiin waxaan ka dhignay sanadkan oo runtii investmentiga iyo habaynta qayb weyn ka ah GBLG mashruuc la yiraahdo runtii Trayportiga Gambare oo lagu talagalay runtii in ay ganacsiga iyo socodka wax weyn ka tarto dhaqaalahana ay kobciso runtii in gobolkeena uu tikid noqdo wax weyn oo isku xidho Soomaaliya iyo Somaliland meeshii isku xidho bridge isku xidhayna noqono hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku hooray ilaaca cirka ku hooray hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga
himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta tirkiya dooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku hor yaaru waxyaabo ugu muhiimsan dadkeenu ay dhalinyarteenu oo koobka Soomaaliland waa inagii himiladooyin ka keenay garoonka Cabdullah Cabdi qayb dham u fiibiya oo dawladdu bixisay oo guddiga qandaraaska qaranku ayaa la dhameystiray adugtiin maanta oo maanta xarun FIB wanaagsan buu leeyahay oo waad ogeeyeen markii tababarka ay ku jireen sportsku halka guriga looma kareene halkaas ay deganaayeen adugtiin caafimaadku waxyaabo ugu fiican ama qorshaha nolosha godkii qashinka oo dawladdu bixiso dhaqaale badan oo lagu bixiyay ayaa maanta gobolkeena leeyahay maanta dawladda Soomaaliland qorshe badan ay ka bixisay oo uga madcelin wasiirka maaliyadda horumarinta maaliyadda Saad Cali Shire waxaad ogtiin iyadana oo caafimaadka qaybka ah oo nolosheena qaybka oo nadaafadda qaybka gowraci la socnood oo imika wiiga soo socda gacanta laga jari doono oo dhameystiran isagana runtii hay'adii inaga caawisay NRC la yiraahdo hay'adan uga mahadcelinayaa waxaana ku timid iskama imaan layno mana garanay dalbasho iyo baahi aynu u dalbanay in layna siiyo oo aan shaqo wadan ka qaban runtii haddaan caafimaadka u galo caafimaadka la socdo maanta waxay la tahay ama gobolka Sool ka sheekeenba male xarumaha MCHdu way tirabeeleen meel walbana ku yaalaan inta dhiman dawladdu waxaan ballan qaadanaa inta dhiman inaan dhisi doono Soolna ay tahay meelaha ugu MCHda badan maanta gaadiidka gurmadka degdega ah oo aan oran karo gobolkan waa ku warwarsaday oo isna 2020 wax weyn laga qabtay oo maanta isbitaalka Laascaanood yaala degmooyinka gobolka Sool haday noqoto degmada Xudun degmada Yagoori degmada Ari Cadeeye runtii degmada Orbogays intaba waxa yaala gawaaridii maxaa la yiraahdaa degmada kala baydhna inta sanadku dhamaan 15 cisho gudahooda ee sanadka ka hadhay muddo sanad ka hadhay baanu kala baydhna geyn doonaa insha Allah mid iyadan official marka iyaduna gaadiidka gurmadka degdega ah oo gobolkan isaguna tarbeel ku noqday oo runtii in ku filan ay maanta marada isbitaal walba iyo center walba oo degmooyinka loo gudbiyo wax weyn iyada jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile hibada eebe ee ballaaran buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile hibada eebe ee ballaaran adugtiin isbitaalkeenu wuxuu isticmaali jiray koronto fara ballaaran dhaqaale badan iyo dhibaato badan buu ku qabay oo deegaankeena waxa runtii waxaanu ka fikirnay oo shaqo badan aan gelin waqti badan aan gelinay inuu helo nidaam uu kaga maarmo korontada lacagta ah ee muddo dheer ku socotay mashruuc weyn oo runtii warshad weyn aan oran karo warshada ugu weyn leerka ee isbitaalada Soomaaliland ka jirta nidaam weyn oo solar system ah oo laga hirgeliyay oo runtii daf ku fiican hatta xaafadda magaalada Singara ina soo saarnay imikana installationkiisa u dhamaaday mashruuca soo maalid soo kormeerno arkaysan tuleeka shaqana galay maanta isbitaalka aan dabdama loo raadin doonin oo Ilaahay loogu mahadnaqo waxyaabahaas runtii iyo waxyaabo kale fara badan oo imika aan soo koobi karin oo de war meel lagu soo wada koobay waxa kamid ah waxyaabihii 2020 noo qabsoomay waxbarashada runtii waad ogtiin oo iskuuladii gobolka ee dayactir fara badan ay dawladdu ku sameysay ajanda balaadna way gelisay meelihii iskuulada ka xinaan way furtay dhalinyaradii shaqo qaran ee ka soo baxday shaqo qaran ee gobolkeena u dhalatay waatan train ugu qabanay secondary Musa Yusuf School aan gobolada iyo aan gobolka degmooyinka gobolka Sool aan u kala dirnay ardayda shaqo qaran oo runtii iyaguna shaqo weyn ama hawl weyn ka qaban doona oo waxbarasho oo kamid taasoo kamid qaybta waxbarashada iyagoo dhamaantood dad qualified ah oo ku galay aan adeero iyo abtow toona ku tagin shaqo qaran aqoontooda qalankooda ku galay heer jaamacadoodna ah runtii dhisida iskuulka guriga hore gobolka Sool
magaalada laascaanood waad wada garanaysaan meel aan ahayd guriga hore xaruntii gobolka Sool ay ku shaqeyn jirtay inaan iskuul bedelnay dawladuna ay dhaqaalaheeda bixisay runtii sanduuqa dawladana laga dhisay oo wax weyn isagana ku soo kordhiyay xaafadaas oo runtii marka hore bila iskuul ahayd maanta inay iskuul leedahay iyadana wax Rabbi subhanahu wa ta'ala loogu mahadnaqo dhismaha iyo ballaarinta jaamacadda Nugaal oo dhismo weyn laga dhisi doono oo ka maanta ka dhisan jaamacadda Nugaal aad aragteen quruxdiisa iyo suu yahay oo hore dawladdu u sameysay kii labaad in laga dhisi doono taasina waxay ku jirtaa codsigeegii ballanqaadkii aanu labada qalin jabadood ugu dambeeyay aan ka qayb galay labadaba ballanqaadyadii aan aniga dadka lahaa warskada lacagaha yar aad urursanaysan waxyaabo kale jaamacadda u galiyay laakiin waxay dhismo ah dhulkana dawladda hore u bixisay dhismahan anaga dhisnay kana anaga dhisdoona taan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi uga mahadcelinaya codsigii waa naga aqbalay boorka jaamacadda codsigooda ay aniga ay keenan isaga markaan u sigeen si fiican nooga aqbalay runtii waana maanta oo dadkii wata guddi qandaraasyada la mariyay mashruucaasna waa la bixiyay runtii waxyaabo waxbarashada kamid ah waxa kamid ah boordan arcaday hadda shirar ma ku hayno waqtiin boordanka hore dawladdu dhistay anfac u geystay wax qabto waqtiin kan maanta ay ku qoran tahay Aamina Cabdi Laangare runtii dhistay hay'adda GIF Lean runtii hay'ad Canadian ah oo wadaniya oo deegaankeena dadkeena u dhalatay ah oo adagtiin in library-na ka dhigtay magaalada Laascaanood hore boordankaas aan maalmood soo booqanay isagana aanu tagnay runtii imika waa functional waa shaqeynay macallimiinta oo loo qoray wixii loo qoray oo boordan weyn aad soo aragtid magaalada dhacday boordanku waa kala weyn ba markaan anigu siro tagnay dadku yiraahdeen kan maxal Laascaanood looga dhisay miis waxa ku muujinaysa inta uu leeyahay iyo dhaqaalaha la galiyay waan uga mahadcelinayaa hay'adda waxaan runtii Rabbi subhanahu wa ta'ala u baryayaa gabadha caanka ahayd ee hodanaan laye ee wariyada ahayd in Ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo ehelkeedii iyo qaraabadeedii iyo walaalaheedii iyo aabaheedii hooyooyinkoodii family-koodiina dhammaantood oo mahadcelinaya runtii dadaalka weyn ay muujiyeen inay dadkooda wax qabtaan waxaan leeyahay sii wada wuxuu ka mid yahay waxyaabaha horumarka ee gobolkeena ku soo biiray inta kaliya ma aha way sii badan tahay mashaariicda oo waxa jira waxyaabo hadda waxbarashada heerka imaanaysa oo waqtin dunida maanta waa dunida technology ah oo maanta adduunka cilmi baa la isku muqoonaya waa laga tagay maanta waxa dunida isku muqoonaya waa dhaqaalo iyo cilmi marka waxaad ogtiin maanta cilmigu inuu wax ugu sareeya yahay dunida hadaynu bulsho ahaan aynu aqoonteena aynu kubcinana intaynu aqoon leenahay ayaynu dunida wax la qaybsan karnaa marka waxbarashadu runtii inta way ka farabaanta wayna ka guda dheerta waxaan dhameyn karnaa maanta dhanna ma aha runtii haddaan u galo biyaha gobolka Sool 5 ceel reeg biyood ayaa gobolka Sool sanadkan laga hirgeliyay 5 ceel waa 5 fashion oo maanta shaqeynaya waxaad ogtiin degmada Orbogays in ceel biyood laga qoday ceel biyoodkaas runtii wax badan ka tiri doona البيوت wax badan ka tari doona runtii gobolkeena iyo hawsheena shaqo badan ka qabtay البيوتka Orbogays oo runtii adogtiin meesha ay ku taalo rig hore ku yaalay aan ku filayn bulshadiina ay ku farabadatay maanta البيوت bule waxa ogtiin balhada oo qaybteeda gobolka Sool iyadana in rig biyooda maanta balhada laga dhisay oo ka dhisay maanta functional yahay waxa ogtiin 3 ceel oo Tantaaliya oo dawladda Turkiga aan uga mahadcelinayo oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku caawisay in laga dhisay xidhxidh ceelkii oo maanta shaqeynay oo soo guurtadii ka soo guurtay deegaanada Soomaaliland soo hayaantay inay maanta ceelkaas u furan yahay oo ay kaga maarmeen baraagii abi lahayn dadka deegaanka ay mahdiyeen magaalada Dhumay la yiraahdo hore dhibaatooyin badan uga dhaceen mashruuc weyn horumarineed waxa ogtiin 9 Turkiya oo maxaa la yiraahdaa diblomaasiyiin ayaa soo booqday Dhumay waxayna u tageen sidii ay dhibaatada iyo hawlaha ay wax badan uga ogaan lahaayeen ay wax badan runtii uga ogaan lahaayeen inay ka qabtaan ay wax badan uga ogaan lahaayeen inay ka qabtaan oo wax badan ka qabtaan waxaad ogtiin deegaanka Qorle iyadana in imika ka laga hirgeliyay oo isaguna uu ka socdo waxa kamid ah runtii waxyaabaha ugu waaweyn sanadan deegaankeena ka qabsan shaqo badan laga qabtay wadooyinka oo ah kaabayaasha dhaqaaluhu oo wax ugu qaalisan gobolkeenan iyo adduunka iyo meel walba socodka hadii aan kaabayaasha dhaqaaluhu runtii hirgelin oo deegaankeena aan laga hirgelin
wax badan inaanay suurtagal ahayn baad la socotaan marka iyadana waxaan ka hirgelinay wadooyin fara badan ay dawladdu ka hirgelisay oo shacabkuna runtii ay wax weyn ka qayb qaateen waxa kamid ah wadada Xargaga iyo isku xidha Laascaanood oo imika shaqadeedii socoto wadada kala baydh oo runtii iyaduna shaqo badan oo aad laga qabtay waxa iyadana kamid ah wadada Xudun degmada Xudun oo runtii qorshaheedii iyo hawsheedii la bilaabay waxa kamid ah wadada Boocame oo aad aragtaan iyadana runtii in design-keedii iyo supervision-keedii iyo contractor-keedii la wado wadooyinkaas aan soo sheegay in qaar supervision-kooda waa la dhameeyay design-koodina waa la dhameeyay in contractor-kiina wuu la wareegay gaar ahaan labada wado ee hore ee Xudun Xargaga iyo Kalbaydh intaaba waa la dhameeyay contractor-ka imika gacanta ku haya wadada Xudun oo runtii iyaduna pipeline imika ku jirta oo shaqadii imika gacanta lagu hayo engineer-kii uu ku hawlan yahay iyadana shaqooyin baa laga qabtay dhinaca gaadiidka runtii gobolku waa gobol ballaaran gaadiid fara badan waa leeyahay wasaaradda gaadiidka uga mahadcelinaya wasiirka oo wadooyinka gaadiidka oo isaguna hawshaas shaqo weyn nagala qabtay runtii insha Allah wuxuu dhawaan mar halka soo gaaray keenay mashiinkii leysamada iyo badqabta buugaagta ayuu keenay deegaankeena oo markii hore loo doonan jiray aanu Burco ama Hargeysa loo aadi jiray maanta oo gobolka afraad ama saddexaad baa karaa leysanka iyo buugaagta lagu daabaco yeelan iyagoo digital oo qaab casri ah loo daabaco waxa kamid ah mashiinkii badqabka gaadiidka oo runtii iyagana imka xarig laga furay oo ayna mar dambe gobol kale ama meel kale aynu ay doonin waxa kamid mashruuc weyn oo runtii dhaqaale badan dawladda runtii ay ku bixisay oo malaayiin cashuur ay leedahay ay ku saamaxday cashuurtu halbowlaha nolosha waxyaabo dawladdu ku kala socoto haddaan cashuur la helin horumar lama helayo runtii investment lama sameyn karo mashaariic dawladdu ma hirgelin karto mushahar lama bixin karo waad ogtiin cashuurtu wax kaliya dawladdu ku socoto haddana iyadoo dhigbax ay dawladdu ku tahay bay dawladdu waxay cashuur dhaaf ballaaran u fidisay gaadiidka gobolka Sool joogay meel uu joogaba loomana samaynin waliba tiro lama oran intaas waxa la wixii jooga deegaankaas muddada bisha ah la diiwaan galiyo maanta ku egta 15 December bay ku egtahay runtii gaadiid fara badan oo aan oran karo gaadiidkaasi uu trabeelay oo ana marka hore islahayn intaas gaadiid jooga waliba aan hubinay oo aad loo hubiyay in aan xuduudka cidna ka soo gelin oo shaqo badan ciidamada amniga uga mahadcelinay runtii iyo booliska iyo traffic shaqo aad ay ka qabsadeen hawsha ayaa naga dhacday runtii culays badan iyo shaqo badan waqti badan la geliyay cashuur dhaafkaasi waxa laga tagayaa gobolkeena waxaan ilaahay runtii waxaad maanta aragtaan in uu yahay wax aan la soo koobi karin waxyaabaha deegaankeena runtii gobolkan ka socda oo maanta gobolkeena waxaan doonayaa ku soo gudbo xalkii in xaq u gudbo 2011 hadii la hadmo January gaari aan cashuurnayn laascaan ma dhexmar doono insha Allah maxay yeelay dhaqaalaha inta laga dawladda malaayiinka dollar ah $100,000 waxa loo lumiyay in sharci darrada laascaan ama gobolkan laga saaro waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda Saad Cali Shire wasiirka gaadiidka Cabdilaahi Abukar iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo runtii go'aan adag oo geesinimo leh qaatay oo aan cid kale ku dhacdeen in la dareeriyo gobolka Sool gaadiidkiisa maantana aad ogtihiin in dhamaantiin